isbeddelka caafimaadka ee Beligubadle ayaa deeq agab wax weyn ka tari doonta baahiyaha jiifka iyo qalliinka waxa ay soo gaarsiiyay jaaliyada ku dhaqan dalka Switzerland waxaana lagu soo hagaajiyay agabkaasi Dr. Idris Aadan iyo Ibrahim Daahir Dubad Colo ugu horeyna waxa si faahfaahsan uga warbixiyay Dr. Idris Aadan iyo Ibrahim Daahir Dubad Colo waxaana sheegeen in baahidan ka timid isbeddelka kaliftayna inay raadiyaan caawimo una keenana maanta طبعا waxay naga soo caawiyay Swiss Baraka Charity oo ay gacanta ku hayso hay'adan jaaliyada Soomaalida ee bariga Switzerland cisbitaalkan magaalada Beligubadle ruuxantii ma wada daboolayso intaan sidnaa waa in yar oo bilowa laakiin ma wada daboolayso baahidii codsigeeduna soo gaaray laakiin kulli waxbay ka qabanaysaa saad aragtaan waxa isugu jirtaa sariiro kuwii qalliinka iyo kuwii kale patientka marka la qalo ama la dhigo meesha la seexinayay furaashyaa ku jira direyskii dhaqaatiirta ku jira direyskii nurse-ka ku jira waxa ku jira wax qalab badan oo aad u fara badan oo dhakhtarku leeyahay ayaa gaarigan saaran marka maanta farxad weyn bay runaantii tahay inaan soo gaarsiino waxaana de muuqata oo iyaguna magaranaysa aan aad iyo aad u bogaadinaya de madaxda gobolkan gaar ahaan qaybta caafimaadka oo iyagu aan seexano runaantii wixii baahi ay hadba dareemaan cid kastoo ay israahaan waxbay idinka caawinaysaanba soo gaarsiiya marka kulley maanta arrinka charity-ga ahaa hawsha ay noo soo gudbiyeen annaga nagu soo hagaajiyeen oo run ahaantii Dr. Idris Aadan oo ka madax yahay Swissom ay ku soo hagaajiyeen aniguna aan kala shaqeynayay alaabtii saasaan ku soo gaarsiinay halkan maamul goobta caafimaadka Beligubadle Xuseen Xasan Cali iyo isku duwa wasaaradda caafimaadka gobolka Hawd Axmed Cali Diriisi odaya Qadar Cismaan Cilmi ayaa u mahad celiyay cid kasta oo soo gaarsiisay deeqdan caawimada wakiil ka tahay Leila waxaan marka hore aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan jaaliyada ku nool halka sida sharafta iyo maamuus kale ee ay noo soo qadariyeen uguna keeneen dadkoodii alaabtan aan imika hortaaganahay waxaanu madaxdii aanu u gudbinay hawsha jawaabtii u horreeyay ka helay waa Ibrahim Daahir Dubad iyo Mr. Khadar iyo Dr. Idris aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa idinka waxa kale oo mahadnaqaynaa Swiss Charity Baraka Charity oo ah jaaliyad bariga Switzerland degan deeqdani soo bixiyeen ay ku soo caawimada ah waanu ka guddoonnay halkan waxa isuduwaha gobolka iyo madaxda caafimaadku bay noo sheegeen in ay maran yihiin tiyaatarkii qalliinka cusbitaalkuna wuxuu u baahan yahay wax kasta oo cusbitaal u baahan yahay runtii deegaanka uu ka adeegana waa deegaan aad u ballaaran oo barigana fog galbeedkana fog runtii Hargeysa ayaa ugu xigta markaa waxaan ku cusbitaal oo kale waxaanu runtii mahadnaqa ka bacdi aan u soo jeedinaynaa in ay sida ay imankaba uga qayb qaateen walaalahood ee loogu mahadnaqayo inay u soo xoojiyaan baahidoodu intanu kuma koobna caafimaadka kuma koobna biyaha kamida waxay u baahan yihiin ceelal bay u baahan yihiin runtii oo meeshu ma laha biyo gabagabadii waxaa si wada jira u soo afmeeraya xogayaha fulinta dowladda hoose Beligubadle Saalax Maxamed Idris iyo duqa degmada Beligubadle Cabdi Iimaan Jaamac waxaana kamid ah hadaladoodii isdwaayay bahar caafimaadka gobolka oo aad ugu dadaal sameeysa sidii mujtamacooda ugu daryeeli lahaayeen baahida caafimaadka aad ugu dhiban waayo weeye arrimaha bulshada waxay leeyihiin caafimaadka ugu weyn qofka caafimaadka meel walba oo tika marka aad u dadaalayaan maalinka isaguna mar walba garab taagan aad baad u mahadsantihiin dadka jaaliyada Soomaalida ku nool bariga Switzerland aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxa noo koonteen wixii aan u baahnayn ee dadkiinu u baahnaa ayaana soo gaarsiin cidii ay soo xil saarteena si fiican oo gobonimo leh ay noo soo gaarsiiyeen waxaan aad ugu mahadnaqayaa hormuudka bariga Soomaalida ee Switzerland inta Leila oo aad iyo aad iyaduna u dadaalaysa Ibrahim Daahir isna hawsha qayb lixaad ka qaatay oo in badan baaqi aan jeedinay ka soo falceliyay waxaanu ka codsanaynaa jaaliyada bariga Switzerland waxyaabaha baahiyaha jiray ee istuu noo sheegay wixii aad qaban kartaan inaana soo caawisaan gunaanadkii waxa soo kormeeraya waxa ay soo kormeereen dhakhtarka qaybihiisa kala duwan oo dhammaanba wada dhisan dhismahoodu laakiinse qaybtooda ay tahay bilaa qalab waxaana kamid ahaa qaybahaasi qaybta qalliinka cisbitaalka Cabdiraxmaan Samri TV caalamiga Home Cable TV
balugubadle.